ciyaartooydaas oo kala ah cabdiqaadir cusmaan maxamed oo ah difaac midig, ayuub xasan maadey oo ah difaac midig, muxyidiin mukhtaar cusmaan oo ah difaac bidix, khaalid axmed xasan oo ah difaac bidix, cabdullaahi cabdulle oo ah difaac dhexe, cabdiraxmaan axmed cabdulle oo ah difaac dhexe, saciid maxamed cabdi oo ah nambarka lixaad dhexda qeybiye ah, maxamuud cabdiqaadir mustafa oo asina dhexda qeybiye ah, axmed xasan maxamed oo ah asina nambar 8, idriis cabdiwahaab aadan oo ah asina nambar 8, cabdallah cumar cusmaan oo ah nambar 10, cabdixafiid maxamed cabdi oo ah asina nambar 10, badri xuseen axmed oo ah baal midig, yaasiin cabdiraxmaan cabdiqaadir oo ah asna baal midig, cabdiraxiim faarax kulana oo ah baal bidix, cabdicasiis cabdiraxmaan baahuur oo ah baal bidix, cabdiraxiim maxamed daayir oo ah nambarka 9aad oo weerarka afka hore ah, diin maxamed daayir oo asina ah weerarka afka hore ah, cabdiqaadir cali maxamed oo ah goolhayo koowaad, jibriil cali axmed oo ah asina goolhaya, maxamed aadan cusmaan oo asigana goolhaya ah, xasan aadan bare oo asigana ah qadka dhexe. insha allahu tacaala bidnaa alkariim intaas oo ciyaartooy aan soo sheegay ayaan maarta ugu hambaleynayaa taageerayaalka soomaaliyeed dal iyo dibad meel kasta ay joogaan, raggaas ayaan matalayo insha allahu tacaala bidnaa alkariim noogana qeyb galaayo tartanka koobka afrika oo taariikhiga ah.